Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhawaada janalkeena Xamdi Xarago. Marka waxaa waaye waxaan samaysaneynaa maanta cabitaan insha Allah. marka gabdhaha waxay dhaheen cabitaanada iyo waxyaabaha dabiiciga ah miisaanka lagu kordhiyo noo soo geli. Inta badan waxaa soo gelisaa sharoobooyinka iyo waxyaabaha inta badanna saas uma helno sharoobooyinka. marka insha Allah waxyaabo badan soo wadnaa cuntooyin cabitaano, laakiin waxa waaye marmar waqtiga dib noo la dhacay. insha Allah waa soo gelinaa waxyaabo badan. maanta waxaa soo gelinay cabitaankan. marka waxa waaye timir iyo loosus iyo waxa isku dardaray iyo caano. miisaankan kuwan aad u kordhiyaan haddaad cabtid laakiin 15 bari oo kale ama 30 bari oo kale maalin kasta hal mar ama laba mar lagu talagalay qofka markuu aad caato u yahay inuu cabo, iyo qofka dhiigiisa zaaid u hooseeyo kala soo hada markaas leeyahay dhiigaaga aad u hooseeyo kala waa samaystaa. timirtu ognahay iyada waxa waaye geed oo aad u nafaqo badan maasha Allah, bini aadamkan waxtar badan u leh. fitamiinada kale ciida ka badan la soo koobi karin, laakiin caanaha sidoo kale dhankooda markii labadooda isku dartid waxa waaye proteinkooda high noqonaya. marka labadooda markii la isku shiito iyo wixii loo saahay sidoo kale proteinada way isku badanayaan. qofka markuu cabo dhiigiisana way soo celinayaan, anemiyada ka hortagayaan oo kale. anemiyada kale qofka dhiig la'aan ku soo socotay oo kale, cayilka, energy-ga oo kale qofka haduu qof markasta iska daalan iska caajis oo kale yahay energy badan ay siinayaan. marka insha Allah waxa fiirinayna fitamiinada laga helo timirta kaligeeda. insha Allah waan shiidanayna wax yar kadib intaana timirta noo gudaggalin. insha Allah rabana idin sheega saa u sameeyay. caanaha waxaa ku dhigay timirta dhowr saacadood, 2 saac 3 saac oo kale bay caanaha ku dhici jirtay. marka hal koob aan kula shubay intaan soo fiiqay lafta ka bixiyay soo yareeyay say u jilicdo kale mashiinka markuu shiidayo kala qarrac oo dhin oo safta u noqotay cabitaanka ay u dhex gasho ugu dhex milanta. marka dhacaakeeda oo leeyahay ku dhex mil macaanaha Soomaa loosaskan iyo dib uga dareena insha Allah. marka cabaara lagu dhex daaya dadna way ku dhex kariyaan, laakiin anigu kama wagaaraba caano iyo timir inta la isku dhex karinayo waqti badan ah. caanaha inta markan guriga hawshiisa ka daba wareeganaya intaan meel ku shubo timirtana ku sii dhex daraa meel iska dhigtaa. marka insha Allah waxa ku dareena pumpkin seedki iyo loosaskii kale wixii kale hadii haysatay jeceshahay oo flavor oo kale vanillada kale oo lagu darsadaa, laakiin aan wax badan mar rabina ku darsado insha Allah wax yar oo sonkor ah. timirta iyada macaan oo sokor leh, laakiin wax yar ilmaha ay la cabayaan. marka waxa raba xoogaa dhadhankeedina kor u soo qaado oo yara qatar ka dhigo ilmaha iyo maaragta markaan siinayo kale. marka insha Allah intaas oo kale ku darsanayna waan isku shiidinayna cabaar. waxa raba inay shiidanto kaal iska arag waan is dhex galaysaa maadaama timirta already nush isku soo tiri oo soo dhex cabaar dhan ay caanaha ku dhex jirtay. marka insha Allah waxa sameeynayna waa isku shiidinayna. sidoo kale naga ilaawanina inaad subscribe noo saartaan iyo like fiidiyaha qaybta commentiga iyo leedinka waayin. hadda already subscribe noo tahay oo subscribe aad mar hore noo saartay waa ku maadsantahay kun iyo kow jira kaaga mahad celinayna. cabitaanka insha Allah waad iska shiidanayna. waxa waaye waqtiga ku socdo Soomaa marka waxa hore ka shiidina. sidoo kale naga ilaawin inaad saxaabtaada la share gareyso cabitaankiisaas noogu soo baxay maasha Allah. koobkaas weyn ugu soo shubanay hal mar loogu talagalay aman, laakiin koobka asoo koob weyn 2 qof 3 qof qaada maasha Allah aad uma yara. waxa waaye marka saas ku soo baxay ma miirin waxba ku basabeynin maadaama timirta aad u jilicsaneed caanaha toos u dhex gashay. marka wax oo laga mirmiraayo iyo waxa sharaada toona ma kaarin timir iska jilicsan macaan way ahayd maasha Allah. saas noogu soo baxday marka wax yarna waxa ku reebay kii aan wax ku shiiday mashiinka camal wax yar uga soo tagay, laakiin inteedii kale oo intii ugu horeysay saas ku soo baxday kalar aad u qurux badan oo brownish ah. timirta faa'iidada maasha Allah lama soo koobi karo. guryaha Soomaalidana waa iska tahlaa timir iyo caano waxa laga waayay timir iyo caano jiraan maasha Allah. because waxa waaye waa ku afurnaa qudaar ahaan oo cunaa si fitamiin oo helno kale. qofka maanta dhan markuu soomayahay wax ugu horeeyo lagu afuro timir waaye. because waxa maanta dhan cuntada cun la energy oo kale maadaama cuntada u soconin
iyada duu 10 xabo camal oo ka cuno waxa laga yaabaa inuu energy fiican iyo fitamiino uu cuntaas oo dhan ka hela maalintaas oo dhan uu ka soo manaayo kale inuu ka helo fitamiinada laga helo daa wax yar kormarno mooda kulli kaba wada hadli karno because ciidaasi ka badan yihiin laakiin inta hadda maskaxdeeda ka xasuusto labiyo hal daa ka soo qaato waxa kamid ah vitamin B oo kale K oo kale ama K waxa lagu dhaho calciumka oo kale iyo iron waxa dhahnaa feerada Soomaalidana inta badan way ku yartaa feerada ama ironka aad uu noogu yaryahay markasta waxa la dhahaa feerada aad ku yar marka waxa cuntooyinka feerada ku badan tahay saas uma cuno sooba hilibka iyo bariiska iyo waxyaabaha oo iska cuna masha Allah allo sahalka insha Allah sidoo kale magnesiumka zinkiga oo kale zinkiga aad u fiican yahay anunta asaga caadi ah soo gataaba ilmaha xitaa waa la siiyaa insha Allah fitamiinada halka ku soo wada koobi karno marka intaas baa ka gaarnay lafo kale u fiican yihiin caanaha xitaa sidoo kale ayaga lafay u fiican yihiin dad badan baa inta badan lafaha ka cabta markasta lafa xanuun dhabar xanuun ayagoo aad u yar laakiin waxa laga yaabaa inay cudur saas qofkaas uu qabin laakiin ay ku yirihiin waxyaabaha borotiinada ama fitamiinada lafaha u fiican oo kale inuu qofkaas jirkiisa uu ku yaryahay ama ay ka maqan yihiin oo kale laakiin waxa waaye insha Allah ana isku dayno inaan qudaar badan cunno waxyaabaha vegetable oo kale fruit oo kale markas daawo dabada laga ma wadi karo qof maarta maanta oo dhan bac daawo ah wata fitamiino wareer waaye isagoo yar marka muhiimada hadalkayga waxa waaye markasta naftaada iyo tayada iyo tiinab inaan u roonaano wax kasta wax tarna wax gal nool insha Allah cabitaanada kale biyaha kale biyaha cad xitaa intaas oo faa'iido laga helaa walagu leeyahay laakiin dad baa waxa laga yaabaa inay sahaleeleen waqtiga intay biyo soo qaataan cabaan ku dhahayo biyo soo sama cabna dadna waxa laga yaabaa maalinka xisaabsanaya 2 litir miya cabna 3 litir miya cabna dadka marka isku mid ma aha insha Allah waxa waaye ina caafimaadkeena markasta ka warqabno waxyaabo wax tarka nool insha Allah aan badsano fiidiyahayaga maanta suurada ku dheeraaday insha Allah waa soo gabagabeynayna markale naga ilaawina like subscribe commentiga insha Allah waxyaabaha jeceshiina noo soo sheego soo gelin doona hadii Ilaahay idmo inta badan waxa waxyaabaha jeceshii soo sheega gabdhaha luqay wada sabka igu soo sheega laakiin waxa aniga wareero wada sameeyay marmar fiiriya laakiin qaybta commentiga fiidiyaha kale insha Allah dad noogu soo qortaan waa laga yaabaa inaan arko wada sabka laga yaabaa inta badan hal mar inuu degdegsan inaan furo laakiin YouTube inta badan wardiya ka ah laga yaabaa commentiga kale u sii aad ugu sii fiirsado markuu qofku comment soo qoro marka insha Allah gabdhaha waxay daneynayaan oo kale commentiga loogu soo qoro dhowr video dhowr comment arkay insha Allah ayagana waa soo wadnaa oo waxyaabo dhan abayooyinka soo hadal laakiin waxa waqtiga iska yar ciriiriyay insha Allah khasab waxa idinka dalabkiina waa la keenayaa taas waa amarkiina insha Allah fiidiyahana la socda fiidiyaha ka dambeeya fiidiyasha dambe soo gelin doono nala socda intaas waxaan kaga tageynaa khayr barwaaqo bash insha Allah inta fiidiyahan mid kale ku kulmi doono waxa leeyahay kulan khayr qaba waxa insha Allah ana jadwal sameysana isku day doonaa saharo dhahnaba oo aan week ama 2 mar soo gelido 2 maalmood cayiman haddii noqon weydo 2 maalmood cayiman dhiman insha Allah saana iskaga wadareena maalinka noo fudo ku soo tooranayna hadii Ilaahay idba fiidiya gambalaalka furo insha Allah saana la socotay markasta oo فيديو cusub uu soo dhaco asxaabta insha Allah gabalka furta subscribe-na naga ilaawina hadii Ilaahay idmo subscribe-to waxa waaye waa maxaa markasta wax soo dhigno wala soconay ma aha hadii laakiin inta badan iska daawatid hal mar xalga mar labaad inaad arag marka fiidiyasha dambe insha Allah saa ku misgareysid ma aadan kugu dhaafaan oo kale marka insha Allah gabalkan iska furo bilaash waa subscribe-to bacbac noogu sii insha Allah qaybta commentiga waxa waaye iska soo xaadir hadii Ilaahay idmo wixii su'aalaha qabtaan wada sabkayga waa haysaan way soo gashaa fiidiyashan hadana la soo raacin insha Allah kan kala ku soo raaci kartaan sidoo kale Facebook-gayga hada profile-kayga kor tagtid Facebook-gayga Snapchat-kayga waxa saaran sidoo kale
Instagram-kayga sidoo kale insha Allah waa igala soo xiriiri kartaa. Marka meesha linkiba ku yihiin uma baahan inaad raadisid. Mid kasta meesha ay kugu soo dhagan yahay wax oo loo doonayo oo meel dheer laga fiirinayo ma ahan basaba. Marka insha Allah kaas idin kugu diyaariyay. Just waxa waaye gabdhaha inta badan Facebook way igala soo xiriiraan. Masha Allah waa idinkaga mahad celinayo. Dad waxa laga yaabaa inay Facebook iyo korba fiirinba profile-ka markasta ku dhaala lambarkaaga soo qor. Waxa laga yaabaa comment-yaasha sayga inaan mar arag. Markaas wuxuu ku dhiri maxaa comment-iga maxaa la jira lambarkaaga nama siisid. Lambarkayga meesha uu ku jiraa fiidiyaan tuu la socon kuwa ka hooseeyo la socda ama kor profile-kayga daa tagtid Facebook-gayga toos ku geeyna insha Allah. Marka ay hadaa wax su'aalo qabtaan ka laweynina Facebook ama insha Allah Snapchat-ka iga soo weydiiya waxa rabtaan. Waxay ku xiran dadka si u kala yaqaanaan dad waxa laga yaabaa saas u aqoonin sida Snapchat-ka looga dhex raadiyo Facebook qofka YouTube-kiisa. Marka insha Allah isku day anaga istaan hoos idin soo dhawo. Assalaamu calaykum.